waxaan galaynaa mawduuceena kale waxa weeyaan waa sheekooyinka guran iyo rogan aan idinka sheekaynayo waa sheekooyinka maanta socda waana kuwii shalay socday waxa la ku kala duwan yihiin ma jiro sheekooyinkeena guran iyo rogan iyagoo maqaalana hadda ka hor waan qori jirnay iyagoo sheeko oo jacaylan ka dhignana waan qornay maxaan uga jeegnaa sheekooyinkeena guran iyo rogan sheekadii ma shalay jirtay baa ribilay cajaladii baa laynoogu ragoon waa ribilay tii baan dhageysanaynaa waxaan aad uga yaabaysaa waxa weeyaan sheekada guran iyo rogan dhibaatada maanta jirta hooyaday shalay toole naxdin bay ku nooleed way cabsanaysay wiilkeeda way cabsanaysay marna waan xidhnaayo way walbaharsanayd hooyadii wiilkeedu badbaadsanaa ee ka cabsanaysa in laga xidho hooyadayna wiilkeedu way xidhnaa waxay walwalaysa in la soo daayo ahayd hooyadii marka hooyadaa kalena waxay ka walwalaysa wiilkeeda in la xidho dhibaatada maanta jirta waxa weeyaan sheekooyinkeena guran iyo rogan hooyaday shalay hadday calaacalaysay oo jalogaadeen hor taagnayd maantana inay ka naxsanaato wiilkaagii baa la xidhi waa guran iyo rogan labadan hooye maxaa kala fadilay marka maxaa kalifay midna wiilkeedii shalay wuu badbaadsanaa laakiin way walwalaysay lama xidhin lagamana dili qaarna waa laga dilay laakiin walwalka maskaxda waxa loo baahan yahay haddii hooye ay ka baxday walwalkii maskaxda dee ani hooyadii walwalkii maskaxda maxay uga bixi ladaa maxaa hooyadii isu kay bedelay marka sheekooyinkeena guran iyo rogan maxaa kalifay labadii shalay wada wareersanayd ee walaalaha ahayd markii dhibku uu jiray maanta markii la yar nasta wax la helay in mid garabka lagu dhufto midna la soo dhaweeyay waa sheekooyinkeena guran iyo rogan waxay ka dhigan tahay marka uu dhibku jiro dad baa loo baahan yahay kaa dagaalamaya markuu guusha keenana waa la riixayaa waa laga hor qaadanayaa wax walba labadii wiil ee walaalaha ahayd ee shalay wada socotay maxaa maanta midna barwaaqeeyey midna halkii hambiriga ugu jiiday waa sheekooyinkeena guran iyo rogan labada wiil ee shalay sida xorta u wada hadlayay wada sheekaysanayay wax la isku wanjalayaana wuu jirin maxaa maanta keenay markuu yidhaahdo waan baahanahay ama dhibkanaa jira in laga dhigo xisbigaad ka soo horjeedaa dowladdaad ka soo horjeedaa hebel baad u jeedaa waa sheekooyinkeena guran iyo rogan labada wiil ee shalay walaalaha ahaa wax wada cunayay maxaa keenay maanta baleendhada in loo kala bedelo oo midna ku maran loogu dhiibaya midna ku buuxa waa sheekooyinkeena guran iyo rogan bay ka dhigan tahay oo weli sii socda halkii ka sii socda oo aan la isu sheegi karaynin marnaba haddii markaa sheekadu ay sidaa tahay labadan hooyo maxaa kala fadilaya bal soomaaliyay waxa hooyaday ay u walwalaysa maantana ee habeen oo dhan habeen keliya tama saxato hooyaday ee loogu hanjabayo wiilkaagii caawa lala baxaya haddaad ka saxiixi weydaan inuu joojiyo kilibadiisa iyo qoraalladani kuwii shalay aan qoraynay dee kuwii shalay aan qoraynay wayba ka duwan yihiin oo maanta waa tala bixin iyo wanaag wixii wanaagsanna waan qirayna maxaa markaa keenay in hooyadii loo hanjabo waa sheekooyinkeena guran iyo rogan oo mar kale aan dhagaysanay haddii markaa cadaaladdu ay tahay oo sheekooyinkeena ay noqdeen in beijkii hore ee cabdi maxamuud cumar maalinba mid la xafido kabacdina la implement gareeyo maxay isu keen bedelay marka fikirkan saxda haddii uu sidaa uun yahay oo leedahay fikirka un baa saxa maantana waayahay hooyaday ma waxay nasiib u heshay in iyadu had iyo jeerba ay dulmanaato had iyo jeerba ay walwasho kolla ay istiraahda hanka la soo kacdo istiraahda alxamdulillahi rabbil caalamiin nabad baa la helay nabadii in lagu weeraro haddana iyadoo hooyaday biyeeda iska cabaysa oo alxamdulillahi leh oo dadkii haddana wacyi gelinaysa oo le nabad baynu haysanaa bas wax kale ma jiro haddana in biyaheedii yaraa lagu weerarayo iyo nabadeedii iyo gurigeedii oo habeenna ay seexan la'dahay oo dhiigu ku kacayo macaanku ku kacayo oo habeen kasta la leeyahay wiilkaagii waa lala bixi doonaa wiilkaagii waa la xidhi doonaa waa sheekooyinkeena guran iyo rogan marka oo mar kale inagu soo noqday bay ka dhigan tahay haddii hooyada qaarna ay nasiib u heshay inay nasato midna ay nasiib u weyday in ay salka ka fadhiisato salka fadhiisigaan sheegayo waa maskaxda weeyaan maxaa kala bedelaya marka hooyooyinkan oo hooyana ay u fadhiisan la'dahay hooyana ay u barwaaqaysan tahay nidaamka tan ugu dambaysa markaa waxay noqonaysaa haddii cadaaladii sheekooyinkeena guran iyo rogan mar kale aad inoo geliseen dee waxay noqonaysaa soomaali intaasoo hooyooyin oo shalay walwalayay oo maanta isla walwalkaad ka baxdeen hadday noqoto in walwalkii dib loogu celiyo
oo aan wada tashano iyo fikir ka fiican oo lagu haysto de kolka hooyooyinkan iyaguna ilaahay bay leeyihiin oo ilaahay bay baryi laakiin annaku hooyadii shalay nagu taageersanayd in naftayda wadanka aanu biimayno ee lahayd ayzo hore u soco haddii shalay abaalkeedu uu noqday in wiilkeeda la xidho maantana hadduu yahay wiilkeeda in loo hanjabo dee hooyadana ilaahay bay leedahay waa sax haddii cadaalad aad saa u aragtay oo mar kale annagoo adigii kula hadhicin hadheeliyin oo fikirku u kaalmaynayna habeen iyo maalin u soo jeedna haddii fikirkii uu qofkii dhimbiil ku noqdo oo cadaawad loo arkay taasna waxay ka dhigan tahay markaa wadankana ma wada lihiin diintana ma wadaagno dhaqankana ma wadaagno isku diinna ma nihin isku dhaqanna ma nihin isku dhiigna ma nihin bay ka dhigan tahay waayo annagu intaa badbaadadooda aan u soconnaa haddii intaa badbaadadoodu ay ku damaqdo dee kolkaa dadkiibaa garsoora dadkiibaa jooga hooyadayna ilaahay bay leedahay laakiin annaku inaan waddada xaqa ka leexanno oon been u sacabatunno aag annagoo fikirkaa wanaagsan qorayna ayaa shaqadayda yareena haynina lagu soo weeraray way iga dhaadhici kari weyday cadaalad darrada igu dhacday haddaan idinka sheekeeyo soomaali wallaahi ilmada ma ceshanaysan laakiin ma rabo inaan guda galataa I don't waayo aniga shaqa ahmiyad ima laha waxaan u socdana ma aha xil baan diiday anigu waxaan doonayay inta waddanku isbedelayo dadku maanta jaantaar rogantan iyo sharci iyo qawaaniin la helayo inaan waxaan dibadda ka joogo xafiiska caafimaadka agaasin layga yeedhay halkaasaa laygu qoray doctor Yusuf baa igu qoray waa laygaga daba yimid kursiga waddanka ugu sarreeya igaga daba yimid barta anoo isaga la talinaya talooyinkayga baa dambiil ku noqday maxay noqotay walaalkii in booska layga qaado just si aniga ma taqaana mentally la ii torture gareeyo oo cadaaladda aan sheegayo waa masale in lay tuso tusaale in lay sameeyo 3 bilood baa cunqabtay in lagu soo rogay oo qof inta laygu habaaray waxba aan dhaqaajin waay 3 bilood ayaa calaacalkayga lagu raaxaysanay oo habeenka aan calaacale aan yaabo baadhi laga tumanayay buurta oo laha caawa ninkii uu yaaban yahay wallaahi ilmada ma ceshanaysaan haddaan sii dhex galo halkaa uma dhaafayo laakiin waa qasab inaan marmartaa taabto haddaba sheekooyinkeenna guran iyo ragon waxaan ka wadaa waxa weeyaan shalay hooyaday halkaasay ku jirtay hooyooyin kale halkaasay ku jiraan muska madaxay hoos u dhigayeen hooyooyinkii maantana hadday noqotay madaxayna hoos u dhigaan ilmahayga maxaa ilmaha ka bedelay muxuu ilmahaygu rafaadsan yahay maanta shalayna uu rafaadsanaa maantana uu rafaadsan yahay maantana uu bila masaariif u yahay maantana cabsi ugu noolyahay abbaha baa la xidhaya oo kolba dumar inta loo soo diro la odhanayaa biin baa la xidhaya ciyaalka yar baa lagu dhaya xataa sheekooyinkeenna guran iyo ragon marka annaku ma joojinayno haddii 100 qof ay ku dhiman haddii siraaj aadan la dili haddii la xidhi haddii la wax la waxayn in sheekooyinkeenna guran iyo ragon aan u sacabtubna lagama yaabaro hooyadeen ilaahay bay leedahay mawduucana intaasaan kusoo koobaya